nimco muuse axmed waa la dhahaa waxaan joogaa magaalada Hoosteri kaamka Trasqiiqan marka dhibaatada aan meeshan ugu haysta ayaan kaaga warramaynaa dadaan Soomaali nahnay waxaan bishii 12keedii waxaan ka yimid magaalada Soomaaliland xageed soo martay markaa waxaan soo maray Liibiya Itaaliya Hoosteri Liibiya Itaaliya Hoosteri badda soo maray waxaan ku jiray habeen iyo maalin maxaad uga soo tagtay wadankayga dee dhibaato nooga soo tagnay kulli si garasa Soomaaliya dhib baa ka jira waa dhibaato imisa safarkaagu qaatay imisa bilood imisa maalmood shaadu 5 bilood 6 bilood ilaa 6 bilood safarkayga bal xageed ka soo baxday marka la eego Afrika Soomaaliya waxaan ka soo baxay Ethiopia Addis to Sudan to Libya to Italia safarkaaga haddaan ku noqdo kharash intee leeg baa kugu baxay waxay ugu baxay ilaa Soomaaliya ilaa wadanka waxay ugu baxay 4800 oo Liibiya 4800 oo Liibiya iyo 1500 oo halkan lagu keenay wadankan adu waxay ugu baxay 8500 ugu yaraan 8500 dollar ha marka hadii aad ogaan lahayd safarkaaga halistiisa ma soo gelin lahayd ma soo galaan mana soo bixeen lacagteeda waan iska haysan lahaa mana soo bixeen mana soo doonteen haddaan saamooday lacagteeda waa iska haysan la wadankayga wax kaga qabsan la hadeen mooday ruunaysata yaad uga soo tagtay Soomaaliya waxaan kustii hooyaday iyo ciyaalkayga iyo aabahay iyo dadka awlaadeedii laba ciyaal aan dhalay inaan baan dhalay imisa jir way labaduba inankuna waa 3 sano inantuna waa 2 sano waa sanadii 9 bilood Amir iyo Amira la kala yiraahdo goorma kugu dambeysay waxay ugu dambeysay bisheedii sanadkiis 2014 bishii tobnaad marka dibta darteed baan kaamka ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa aan siri dabaqad ka soo tuuray dabaqa saddexaad iska tuuray oo maxaad iska soo tuurtay dhibaatada iga haysta meesha iyo daryeel la'aanta iyo qaabil la'aanta iyo booliskan ragga kala warramayaan wadanka waa anaga aan ku qaabilsanay haddana Afrikaanna marka dabaqa iska soo tuuraysay maxaad maanka ku haysay maanka waxaan ku hayay wada inaan iska badhintaba inaad istishaad doonaysay noloshaygu igu adkaatay dabta maxaa dhacay meeshan baan meel baahan walaal meesha meel wanaagsan ma aha hay dabaqad ka soo tuurtay kadibna maxaa dhacay kadibna dee afcishan kuma ku jira dhakhtarkan aalay hay maxay see wax ku gaadheen la gacantan labada gacmood ka jabay dhabarka hay imkana alxamdulillah dee wala taagana ku warramaya waan ka soo baxay koomadii markii dambe soo caafimaaday kan baa ku igu soo celiyeen meeshii igu soo celiyeen kaamkii igu soo celiyeen imka fiicanta alxamdulillah rabbil caalamiin waa fiicana wala maxaa ku qorshaysan marka wax laalo waxaan ku imka dee ka baxbaan isla wadanka Sweden u baxbaan isla way soo qabteen maalmood bay soo qabteen wadanka halka ugu socnaan dhaawaca wadanka baad ku dhaawacantay xaq u leedahay joog bay ugu dhahan xaqan ku yeeshay sharci iyo waxaan doonayaa baan ku wariyo bayt fiican la geeyo kadib dee guri fiican la ima geeyay xilligaan interview iyo waxba toona laga maqaan sharcina la ima siin halkan baad xaq u leedahay ugu dhahan xaqna kama hayo xaq iyo xaq watoona marka maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya dadka idaawanay waxaan u sheegayaa inay horta dadka Afrika imka joogay ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan u leeyahay horta Yurub waxba ma yaalaan hana ku sahmiyaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna ilaahay dee khayrkeeda ilaahay idin kulisiyo wana la aragteen adigu markaad Yurub